saana u fiirshay mise sidii tukuhiiba hawada iga soo socdaa soo afka saa u kala haya dhacaankiisii baa saa igu soo daatay afkiisa ka daayay waan ashahaatay meel aan u cararan ma leh mana boodi karo jarjar baan geed ku soo fuulay waxaan isiri markii bahalkan adiga horda ku diliyay naftu waa balaaye goortu kugu soo dhacay xabada dhuunta u gali waa sanooyin ka hor dhulkuna waa hawdka gobolka Nugaaleed oo waqtigaasi barwaaqo ah baqdinta ugu badan ee reer guuraaga xilligaasina waxay ahayd duurjoogta ugu horeeya libaaxa oo ah boqorka habar dugaag sheekooyinka libaaxa iyo qisooyinka ka soo maray reer guuraaguna waa sheekooyinka ugu xiisaha badan marka aad joogto dhulka baadiyaha ah iyo tuulooyinka yaryar ee ku xeeran halka magaalooyinka waaweyn aad ugu imaanayso ka sheekaynta siyaasado kala duwan iyo fadhi ku dirriyo joogta ah Cabdullaahi Cali Warsame Biyood waa aasaasaha deegaanka Qalaanqal oo ka tirsan gobolka Nugaal waxaana ka sheekeynayaa mid ka mid ah waayihiisii nololeed iyo weerar har cad dhex maray isaga iyo libaax ugaarsi tag ahaa Cabdullaahina waqtigaasi waxa uu ahaa saantag iyo inuu soo indheeyo deegaan ku habboon miyi magaalo waan joogay casarkii markay ahayd oo qorraxda gaabatay oo aan ka gaari karin reerkii iyo masaafadii aan ka imi midna waxaan go'aansaday inaan xabad garanuuga ku qasho baliga dhexdiisa garanuugtii markii aan qashay qorraxdii way dhacday dalaq bay tiri geed baan imi weyn ilaahay baa weyne korna dalad ka saa uga soo daladaysan hoosna ka dheer oo 3 mitir iyo bar ah dhexdiisana waxaa degi jiray dadka libaaxa ka cabsada oo ka gala libaaxa iyo kanicada laga fuuli jiray socodka sahanka oo dheeraaday iyo deegaankiisii noqoshada oo fogaaday Cabdullaahi Cali Biyood waxa uu go'aansaday inuu ku haydo habeenkiisii koowaad baliga Qalaanqal leh dhanka kalena ma mooga cabsida iyo walwalka badbaadada naftiisa ee libaaxa oo uu durba dareemay cida iyo jabaqdiisa oo ah mid aan loo adkaysan karin sida awgeed markii ay dhacday garanuugtii markii aan qolay hilbaheedina soolay geedkeen aan fuulay waxaan maqlay libaax xooga iga jidha cabsi badan baa ay gashay waxaan sir bahalkan anaguna markaas waxaan ahaa nin ka soo baxay magaalo oo aan miyiga aad ugu active ahayn war waxaan raadkiisa aad aragtisaan u ciidiya xagad caaw naftaada ku badbaadin doonta xoogaa markaan joogay meel ugu dhow oo biyo qabsir oo baliga meel ka mid ah oo war jeexana xoogaa biyaha ku jiraan mid baa soo taagay libaaxa wuxuu dareemay sanuuntii garnuugtii aan qalay buu dareemay wuxuu damcay markaa waana baahaysay caraduna waa cilla toos buu ii soo abaaray waxaan maqlay cidiisii oo reen ah waan burji dhacay anigii waan geliriyooday anoo dhan timihna way iskaga taageen geed dhaladiisaan saaranahay oo macaal roobadeedii hilibkay geedka dhaladiisii saaran yihiin waxaan ku talagalay marka waari masjid warka ha ka haro mar haddaad balligan dacay inaad magaalaysid oo degtid oo deegaan ka dhigatid carar oo baqo wax ka xun ma jiraanin libaaxii baa cunay baa dhaama dareenkiisu waa uu isbedelay cabsi badan ayuu uu dareemay libaaxiina waa uu soo dhawaaday oo wuxuuba soo uriyay raqda ugaartii uu qashay maanta Cabdullaahi waxauna galay difaaciisii ugu dambeeyay iyo xeeladii uu libaaxaasi ku dili lahaa naftiisana ku badbaadin lahaa haddii uu soo weerar tago raqdii hoostiilay oo garnuugta lafaheedii iyo madaxeedii caloosha isdul saarnaa baan qoriga aan haysaa ugu shiishkan saa uga bogtay in yar markaan joogay bahalkii waa soo baxay meel banaana waa soo dhigay si aad argagax ii gashay afraqaad iyo reen iyo dhibaato iyo cagajulin cagaha dhulka igu dhuftay intaas ku daray soo raadinaya aan aniga liif iyo arag laakiin raadinaya wax dhaqaaqliya raqda agteeda jooga وصح دي أنا وحبد أدقاق الديني وحنا أنا أوجوا رقدي بدول يمد مركو رقدي بدول يمد أفو قشرة أفو مركو قشرة أنا ماشاس شيء قد بدي الساعة أيام كجرو فتي قري حبدي والنها يدين عكلا كجسوق فيس كربو إسوا هذي وهو يبعني قاعد كذا يدي قلت يقصر هي وهو دن أفرت متر بكر بو يقصر مرة سانا وفير شيء مثل سيد تكوه بهوض يقصر صلاة أفرس أو كلا حية دعان كيسي بس يقصر داتي أفكس كدعي وين أشهاتي ميلا وعرر ماله من البودي كروه شر بانجيت كسر فولي waxaan sir mar bahalkan adiga horda ku diliyay naftu waa balaaye goortu ugu soo dhacay xabada dhuunta u gali bahalkii wariqsideedii meel isu bedelay maaqan afarta adin meeshii uu ka qaaday buu afarta adin saa ugu dhuftay wuu finiinay way naftana waa ka baxday
kadib dilkii libaaxa iyo waagii oo baryey waxa uu ka soo degay Cabdulaahi geedkii uu habeen ka hor fuulay waxaana uu guri noqday reerkii uu maalin ka hor ka soo saantagay waxaana ku soo furay reerkii isla balligii qalanqalle oo ay taalo raqdi libaaxu Cabdulaahi waxa uu walwal badan ka qabay in haddii ay xaaskiisu aragtay libaaxaasi bakhtiga ah ay ku noqonayso caqabad kale oo soo wajahday oo ay baqdin iyo fiig badan ka qaadi doonto balse maxaa dhacay markii aragtay xaaskiisa oo arigeedii la joogta libaaxii oo fuursan muuqaal ahaanna aan loo adkaysan karin aragtidiisa saantaan bardo way cararay haday bahalkan aragtay bahalka intii aan ku ogaa in labadeed leeg buu leegi waa karay afkina raas kala noqday wax laga sheekay kara xiriyo intaas la leeyihiin wax bil aadni u fiirsan kara marka ma bale intuu qarax leeyahay arigii iyo gabadhii wiilkeedii meesha intaan awrtu furayay galay saantii bahalka sidoo taagtay ana u jeedaa haraata ku dhufat ani waa fajacayba qoftaan islaha agax wax ka deeysa hilbiga fiirso waxay tiri hooyo inoo soo daji midaba bahal aabaha dilay wayti waxay tiri maxaad noogu qarisay libaax soo baqti ma habe bayt soo baqti ma ahanay waxay tiri nin libaax xabad ku dhuftay sagaara nin xabad ku dhuftay horta ma ka dawayeey aniga hooyadee baa soo sili ku jira dhagax ku dili jirnay adoo bela iska dhigaysa saan u dilayna ilka hayaafka gafurka baabeen jirnay soo sili ku jira ha haleeyay oo adaaba iga daran makaan arkay waxa ku disheen bahalkii dhagax meeshaadii bal meel ka dheerba deegaanka meesha bilowgiisa soo ahaa qalanqal Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe